cabdiqaadirow qisadan waxay naga dhex taagan tahay aniga iyo qof social media caanka ah. Okay, adigii qof social media caanka ah idinka dhex taagan tahay intaa waa gartay. Inta dambe ha noo sii fasirin, waxaad ii soo bilowdaa sheekada barbilow halkay ka bilowmatay, saa isku barateen, say wax u dhaceen, halkay wax ku dambeeyeen iyo halkay hadda taagan yihiin. inoo soo bilow soona dhow. codka weli waa kor u qaad. wala la xoday yar wax hal marna sheegareeya 2700 ba ku joogtaan. Waxa ay sheegtay weli maqashaa malina aad iyo aad. Okay, qisadan waxay naga dhex taagan tahay aniga iyo qof caan ah bulshada caan ku ah, waliba weji wanaagsan oo yaqaano ummadda islaamka markay arkaan u malayaan qof aad u wanaagsan ahludiin ah xalul wala wax yar adoor haalay waan ogahay bulsho badan baad hor timid sheekada sheegaysaa culeyskeeda wadataa isku day laakiin codka in yar kor u qaad. Okay, waxaan ku dhahay qisadan aniga waxay naga dhex taagan tahay qof bulshada caan ku ah, waliba magac iyo masab ku leh, waliba laga yaqaano bulshada dhan oo social media almost waqti badan ay ku jirtaa, waliba waxaa lagu tiriyaa dadka aadka u wanaagsan oo la dhaho dadka ahlul khayr ka faafiyo oo bulshada ay ka mid tahay. ma fahanti? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي هادو قدال بك شيء دون تعدد عضي ما هيسو قف كاسو أولاد دونا قف كي هاي بل إنو صبلو مركا كو كصبلو. Okay brother, بلا وهر وحكي بلا ونسا شيء كذا أنا إجابة داس وحنستبرن السوشيال ميديا. هاي marar badan leefaf soo gali jirta aad oo waxay daweyshes oo say wax leeso say u libisanayso adiga qaab dhismeedkeeda aad ula dhacay. هاي marka live-ka aaladee ka soo gali jirtay TikTok, Facebook, TikTok tan ay joogno ay live ka soo gali jirtay kadib waxa la dhacday quruxdeedii qaab dhismeedkeedii hadalkeedii iyo say wax xijaabneed iyo say dadku u waani jirtay انت بواجه علي ما شاء الله. هاي وانا اسبرناي سناب جاد الاستقاطي اضيا مرر بدنا اقول كذا قبصنا انا تيتوك قبصنين ايوانكي سحل وهاد لي واي سبب امني درادي ما فهمتي ونفتي اذا هل اسكو جرت ايوانكا سحل واحد وهاد ويدي سبب امني درتيد ونفتا هل اسكو جرتو. خبر بسم الله الرحمن الرحيم. سومالوين او دمك داوانسا waxaan rajeynayaa insha Allah inaan waxna ku soo gaarin sheekadaadana dhigta u dhuuxaynaa ilaahayna waxba kuuma keeno. haye kadib Snapchat-kaas ka barateen. Snapchat-kaas ka baranay waan sheekaysanay meeshii kaftan iyo waxa ka bilowday iyo hadalla macaan la isdhahayo sawirro la isku dardirayo iyo maanta dhan oo waqti la wada qaadanayo. haye marka aad jacaylka u sheegtay mise sidee wax u dhaceen sidii jacaylku u biloomay noloshu sidee u bilowmatay? noloshu waxay u bilaabatay kooda hore kaftan iyo walaaltinimo kadibna markii dambe isku bedesho xiriir jacayl. hay xiriir jacayl adaas u soo bandhigay. ha hay waa laga aqbalay waa la soo dhaweeyay waxaa la baray markii koowaad xiriirka laga ogolaaday gabar walaasheed ayada la dhalatay. gabar walaasheed ayada la dhalatay ku bartay. hay ha familka la wada baray waxaa la dhahay xiriirka waa ka aqbalay maadaama wiil wanaagsan aad tahay adina gabar wanaagsan ahay labadeena ba iska helnay ka waran arinteena hadda guur u bedelano. iyada ku dhahaysaba ha adigoo nin raga ah oo adigu weli guul dalban waxa ku tiri waan ka helay ka war hadda xiriirkeena guur u bedelano imsa wada sheekaysanayeen markaas almost 3 bilood bar 3 bilood oo kaliya. ha wax lacag ma kugu ogeyd ama inaad ganacsi leedahay kale ma u sheegtay oo marka waxay kugu tuumaysaa ma jiray guurkaaga ku dadjinayo business in Allah yahay oo waliba ciwaankan hadda aan ka hadlayo waa ciwaan business aan leeyahay laakiin private oo business aan u leeyahay waayo oo online ka drop shopping ka data qanit. hay adiga gabadhii waxaan dhahay adeesaas tahay dhibaato madaxan dhahay oo guur xalaal u baahan tahay inta hadda aan ka aqaan in wanaagsan ay tahay gabadhii waa isbaranay familkeeda ayana bartay oo si qurux badan ugu doonanay. familkeeda adiga familkaaga u tagteen gabadhii familkooda gabadhii yani ayada laba wadan ku kala nool nahay laakiin
familkeeda baalkii telefoonka la hadalnay si qurux badan oo noo soo dhaweeyeen wayna aqbaleen habeenkii koowaad aan la hadlay way aqbaleen waxay dhaheen waalidkaada noo keenso si aan arrinta inta dhimana u dhamaystirno maasha allah hay okay aan dhahay dhibaato ma lahan aan dhahay waalidkii meesha lagu wada u balmay quraan ala waa baalkii faatixada nula maray sidii ayaa gabadhii noogu siiyey waxaana lahay wadaad nii meheriyay keensada gabadha sin igula meheriyo wadaad keensada lagu si gabadhii leedahay ku meheriyo hay marka meesha magaalada ka dhacaysay meherku ma sheegi kartaa meesha ka dhacaysay meherku magacyada sheegin hadhow hadda cadeyma haysad wixii cadeyma keeni kartaa laakiin xaguu ka dhacay meherku xaguu ka dhacay ya magaalo kale hadaa u bedela ka waran laakiin cadeynta oo meherkana waa kuu soo diray sawirka qofkana waa kuu soo diray haddaa aragtay waa arkay labada waa ii soo dirtay haye okay meel buu ka dhacay Soomaaliya kamid ah ku soco okay waxaana meheriyay sheekh caan ah waliba la wada yaqaano bulshada Soomaaliyeed magacii masabku la sheekh Abu Dalha sheekhan su'aalaha la soo weydiiyo aidin meheriyay oo meherkiina waxa sheekhaas og oo makhraadka hay gabadhii sidii lagu aqal galay oo guurkii u dhacay waliba bilaabatay adiga tirikeeda u jaray waa u diray sidii ay ugu imaanday gabadhii tigir baad u dirtay waa u jartay waa ku timaaday iyadoo xaaskaagii ah maasha meesha bilaabatay nolosha quruxda badneed iyo gurigii wanaagsanay iyo galgacayl iyo wax kasta ayaa noloshii meesha ka bilaabatay maasha allah nolol qurux badan baa bilowmatay talo maxaa soo socda markay kuu timid si fiican aad u soo dhaweysay nolol qurux badan baad ku jirteen in yar noo taataabo nolosha ugu quruxda badan la markaa gasheen wallaahi guri qurux badanaa loo diyaariyey si qurux badan ayay baalkii aeroboortka uga soo degtay dalxiis gobolka gobolaha u dhiibin weli magaaladaas ay ku dalxiisaysay waa magaalada dadka qaarkood ay ku riyoodaan inay imaadaan in yar codkaaga hoos buu galaa magaalooyinka geysay waa magaalooyinka Soomaalidu ama dadka ku riyoodaan ay tagaan baad geysay hay qof kastana magaalooyinkaas waa ku dalxiiseen waa dadka Soomaalida aad ay u jecel yihiin magaaladaas inay u imaadaan waa magaalada loogu magac daran magaalada dalxiiska laakiin magaceedina sheega marabi meelo badan ay noqon kartaa laakiin Soomaalida meesha ay jeceshahay u qaadan kartaa laakiin waxay kala duwan sawiraanta ii soo dirtay ku jirta magaaladaas hay gabadhii sidiisa iskula joognay nolol yar oo qurxoon oo funny ah la iska baashaalay waqti la wada qaadanay kadib maalinta ee diyaaradda raacaysay waa maalinta ee bilaabayso dhibaatada ay nooc oo ugu dhex doonto maalintii ugu dambeysay ka tagayso waa maalinta ay bilaabayso dhibaatada weyn ee kugu dhici doonto a'uudu billahi minash shaytaani rajiim maxay kugu samayn doontaa talo hay aniga waa aamusay farxsanayeen habeennimadii farxadda ku seexateen laakiin waxaan ka iloway intii oo meeshaas ay joogtay inuu ilaahay u wada carasheeda geliyey ubadkiina oo baalkii oo anuu hubo kooda hore oo markay imaanaysana baaritaan iswada marinay kadibna markay bixiysana baaritaanka ay martay inuu ilaahay awlaad siiyey ee baaritaankaas ku martay ayna ku safartana uur bay ku yeelatay ilaahay ilmu caloosha ku geliyey hay ilmihii way la safartay wadankeeday ku laabatay kadib waxaa bilaabatay adiga telefoon in la isku dhegeysto buuq la bilaabo adiga aflagaado joogto ah oo even maxaa sometimes ay social media inay soo fariisato ee aflagaado jirtay like waa dareemi kartaa adiga oo wax dhibaato aysan jirin wax qalad aysan jirin waalidkeeda la xiriirnay anigoo familkeena dhammaystiran intaad waalidkeeda inoo geyn sheekadu meesha ugu xumeyd bay maraysaa markii kaa tegaysay farxad bay ku dhooftay markay magaaladii kale ka degtay telefoonka maba qabanaysaba waa yamaahuur waa telefoon lama qabanayo dhibaato iyo buuq iyo qeylo adiga haddii lagaa qabtana aflagaado iyo qeylo wax kala kulmaysa ma jirto maku aflagaadinaysaa marka maku caayaysa kelmadaha ku leedahay ilaa hadda xusuustaada ku jira waxaa ka mid ah adiga
eraya ana qofka bini'aadamka macaan qalbiyadiisa ilaamish ku reebayaan oo adiga waxaan afka soo qabanayn erayada f word jee eraya uu soo qaban karo oo aad isleedahay xanuun bay kugu hayaan ood sheegi karto maadaama aad jeclaysateen ummadda la wadaagtid sheeg is okay adiga erayadaas waxaa ka mid ahayd sida waalidka la caynayo aflagaadada waalidka waa dareemi kartaa f word markaa ku dhaho waalidkaada oo loo aflagaadoonayo waa acuudu billaahi min ashaytaan rajiim aniga waa aamusay waxaan isdhahay waxaan qofka waa dumar hormoniskeeda ka xasanaan karaan walac bay noqon kartaa adiga waxyaabo badan aa sawirtay intaas aana sameyn oo waalidkeeda aan la xiriirin sheekh awdalaxaan wacay waxaan dhaha arrintaas ay haysato dhibaatadaas ku dhex jira ma aqaanin gabadhaas maanta wax qaldan ay iga tabanaysana ma jirto laakiin erayadaas iyo dhibaatadaas ay wadaa raganimada lek waxba kama sheegin may wuxuu ku yidhi sheekh dalxa wuxuu dhahay nambarkeeda ma iisoo diri kartaa anaa la xiriirayo dhah aan dhahay waa u diray waa la xiriiray sheekadii safare iyo meelo galgalay dib iskumaana maqlin in markii arrintan oo weji kale ay yeelatay ayaa dib isku maqli doonaa ilaalaka u sheegi doonaan sheekh dalxa way ka qaban weyday telefoonka miyaa kaamiya may way ka qabatay laakiin erayada isdhaafsadeen asaa safar galaa ku dhahay ani asimaan ismaqlin oo baalkii markuu safarada galgalay kadibna dee inta yaroo safarada ku maqnaya adduunyada dhan haddana issii bedeli doontaa markaasoo aa dhihi doonaan ayaan dhexdaasan inaan kuu diro waa ogtahay jawaab igumaada soo celin markaana waa markii labaad aa kusoo wici doono wadaadu arrintaas ay haysatana maxaa xal ama aan samey karaa maanta ee diinta islaamka ay ka qabtaa maasha allah adu waxaad rabtaa markaa weli inaad diinta islaamka wax ku xaliso adiga shiiqa wax yar aa dib u laabano waalidkeedaa wacnay hadal aa kasoo boodaa jiray dib yar kugu celiyo markay soo safraysay adiga wax yaraa ka iloway meeshaas aan ku dari rabay waxbaad ilowday markay soo safraysay igu dar markaa si sheekadoo dhammaystiran u ogaano gabadhaas markay soo safraysay macan 7 bilood biilkeeda macan horumarisa usii siiyey shopping ayay noocooda samaysatay adiga wax nafteyda aan leedahay oo maanta aa ka xaqirtiray ma jirto aniga waa aamusay shibaa dhahay markaas kadib waxaa bilaabay inay noloshii oo meeshii waxay maraynaa dib ugu soo laabano oo waalidkeeda aan wacnay waalidkeeda taleefanadii ay naga qabteen waxaan dhahnay arrintaasaa jirto waxa aan gabadhiina inaga tabanayso wiilkeena ay kasoo tabanayso maanta ma jirta ay dhaheen maya dhaheen maalinta imaada ilaa maantadan hal laxbo-eed oo leeyahay kama uusan sheegin ay dhaheen waxaan lahay saas ma ahay gabadhiina la hadla dhibaatadan ay wado ama waxyaabahan ay samaynayso dee labada qofooda bini'aadamka haddee macan qofkii aysan rabin macan hasheeda tuwar la garto laakiin wax oo qaldan haddii jiraan iyana qarsanin hanoo soo sheedato aa la dhahay adiga sheekadiise meeshaas markay marayso aniga iyo ayada muddo bil markaas maan isala hadlin oo bay saartay anina blog ma saarin laakiin meel kasta oo lagala xiriiri karo blog bay iga saartay meel kasta oo taleefanka aan kala xiriiri karo waxay saartay blog welina waxba kuma samayn adigu wax qaldan aan sameey ma jirto markay blog isaartay waxaa isoo wacay taleefon oo i dhahay deeqaa lagu hadla gashay laakiin waa ka shalay doontaa number baa kusoo waca ku dhahay dhiiqa aagaha la gasho ka shalayn doontaa markaa ma gabadh baa mise waa wiil may waa qof rag nin raga numberkii dib u raacay waxaan tagay meeshii oo baalkii shirkadii waxaan dhahay nambarada isoo waceen private numberka inaa ii daawacdiina rabaa markaa ma waddanka joogta gudihiisa laga soo wacaya mise meel kale meel kale waayo laakiin markii oo baalkii private numberka laga soo wacay oo shirkadii aad tagay ayaa soo ogaaday
in wadanka banaankiisa liiga soo wacay oo weliba meesha ayada ku nooleed liiga soo wacay. aniga waa aamusay shib baa dhahay 7 cisho markay iga maqan tahay ee blog iga qaaday su-aashii aan qabay oo 7daas cisho qalbiga la gubanayay oo isku daya macaan xaalado kale inaan galo ama nafteeda dayacay ama waxyaabo kale aan sameeyo qof waa dareemi kartaa oo dhibaatada markuu dhaxda ka taagan yahay oo familkiisana looleyn keligiisna la degan yahay waa dareemi kartaa Cabdiqaadir. waan dareemi karaa weliba qof kale intuu soo wacay dhiiqa cagaa kala jirtaa qofku nolosha la wadaagay ay bloogaraysay aad bay xanuun badan tahay 7 cisho markaas sideed u nooleed ama maxaad ku fikri jirtay marka qaar? wallaahi guriga keliya ku xirnaay 2 qofood meeshan ugu mahadcelinaa ama oo garabkay soo istaadeen wallahu maamo ilaahay aakhiri adduun waxa ugu baryaa inuu jannatul firdawsa geeyo awlaaddoodana waasic ugu dhigo meel kasta dunida ay ku nool yihiin farxad ay ku noolaadaan maamooyinkaas garab isiiyeen adiga ilaa ay igayaan macaan isbitaal psychology oo aan la kulmo qof psychologist marka dabeecadaha kugu arkeen kugu geeyeen maxay markaa sarirtaad ka kici weyday qofkiisa sheekeysanayo meel iska fadhiyo iska ilmeynayo waxba noloshii dhan dayacay even macaan iska dhaafay salaadiisa macaan sometimes iloobi jiraa noqday 5 salaado ilaahay waajibka iga dhigay oo maanta hadaan kan oo baadka macaan ilaahay xirigiisa aan jaray heer waxaan jaaray macaan aan dayaco marka qaarna adigoon ogeyn baa isla hadlaysa adigu aan control karin waa aamusay adiga psychology markaa ka soo baxay kadib dad familkii oo meesha ayada ku nooshahay ayaan u diray dadkii familka waxaan dhahay arrintaasaa jirto qolo cidaas iyo cidaas heer qansax ayaa dhibaatadaas iga haysato hal ii raadiyo wax macquul malahan anina waxaan dhahay gabadhii wax kama samayn awlaadna meesha way jirtay waxaan ka sameeyana ma jirto ma gabadha ma walac naasaan ka dhigay wax kasta qofka bilaadanka marka walacka oo macaan ay jirto dhibaatada waxaa waaye balkii laga yaabo macaan inuu ku dhaho dee time is see leave me alone time aa u baahanahay war la jarto waa bilaadanka aniga waa aamusay markii intii dhacday oo dadkii aan la xiriiray ma rabi inaa meeshaan ka sheego waxay ahayd laakiin familka markaa doonanaynay wadadii aan ku doonanay oo la isku baranayay dadka familiyada isku baranayeen wadadaas ma ahane wada kale ay ahaayeen been ay iga sheegeen tan koowaad reerka aad ka doontay ay kuu sheegtay reerkoodii ma ahaynba magaca oo gabar aa ku guursada maanta waa la wada yaqaanaa qof kasta waxaa waaye gobol kala dhaho gobolka ay kasoo jeedo ma ahane gobol kale aanay jirin bay ii sheegateen قبيل أنا هين أعوذ بالله من وأنا قف أنا أو تيك توك تشتغل قرناي إن فامل كيكوك أنتينا فامل كيدي تحدها موهين لكن أنا ما نكلا قونين وحاهي أضياء قف حمر كدشتي حمر كسو برباري عداء تقانين وابري كدشتاهي like markii la dhaxana dadka kala markii la fiiriyo gobolada kala la fiiriyo qabyaalada markii la dhaho ma naqaana ninka waxaan rabaana sida ay saxda ay tahay ee sheegtay inaan ka sheego daaraal iga tahay may walaal qabiil ha sheegin maya qabiilka ma sheegi rabi laakiin meesha ay degayiin ay sheegtay bas baarba inaan baalkii sheego okay ku saab adiga maadaama oo markii la dhaho qabiilada laf markii la dhaho aniga hoos baan u kala aqoonin laakiin dad jijida ka soo jeedo laf ka sii hooseysa inay yihiin ay sheegatay waa dareemi kartaa jijida ku dhahay marka aniga waa aamusay markii intaas la ii sheeday maalmo kadib ayaa tiktokeeda anoo ciwaan kala samaystay oo fiiri isdhahayo ayaaba waxaan arkay ayadoo nin kale sawir la soo gashay oo soo dhiganayso ma tiktok ta soo dhiganaysaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun markaa waad qabtaa waa qabaa fureenna ma dhicin oo baalkii
aniga waa aamusay mar labaad videogaas waa record gareeye waxaan dhahay haddii lacala ebri wax kala soo baxaan sida abaarkii aa u distid adiga waxyaabo badan a imaadeen maalinta okay waxyar ka ikaadi maadaama qofku qof caana ay tahay oo la wada yaqaano markii aad aroosanaysay arooskiina maydaan shaacin miya sawiraanbad hadda maanta ii soo dirisay aad wada gashan xitaa arooskiina uu ku jiro may sawiraantaa maydaan shaacin miya familkeeda diideen familkii beenta ahaa ay ku bartay baa diideen maya hooyadeedii aabaheeda waa sax laakiin dadka sheegteen dadaana jirin ahayn oo hooyadeedii aabaheed ba xitaa been kuu sheegay sida sheegteen acuuduka billaahi min ashaytaan aduna waad ka yeeshay inaan sawiraanta la faafin oo aroos ku qarsoodi ahaado maadaama dee qofkii dadkii ay ku dhaheen aniga dad wadaadaan nahay culumaan nahay diinta ku dhaqanaa waxyaabaha heesta la saarayo iyo waxyaabahan kale uma baahnin please never sameynin aan dhahan hayaanan because anin waxaan dhahay marba haddee ilaahay caradiisa familka nii diidayaan waxaa waaye waaba kheyraan dhahani laakiin wixii gadaalka soo socdaa ka weyn markii saas arkay numberka hooyadeeda ahaaye waa u diray fiidowgii aad duubtay ninka la duubneed la sawirneed baad duubtay aad u dirtay waan u diray hooyadeeda balood bay i saartay sodohdii aa balood ku saartay inaa lillaah wa inaa raajicuun maxaad dareentay marka sodohdu waa hooyo maxaad dareentay marka shakii shalay jiray oo aa isdhahaye ama waxaan eeyihiin wax jiro ayaa baalkii aan dareemay inay runta usoo dhowta maalintaasaad noqotay xaalkaaga siduu ahaa wallaahi aaladeeda aada u xumaatay ilaahay subxaana watacaala u raabtay 2 rakaca kaday waxaan raadiyey magaaladay ku nool yihiin dad ku nool inaa lillaah wa inaa raajicuun waxaa la dhahay information complete kuma sii karno laakiin hal asxana ku sameynaynaa wadaad la dhahayo sheekh axmed nuur idris nambarkiisa ku siinaynaa wadaadkaas cid si fiican u yaqaano kala xiriir wadaadkii waa wacay waxaan dhahay arrintaas iyo arrintaas baa jirto hal mar bili shaashada garaaca uu kuus istaagaya waxaa culus baha shaashada hal mar inoo garaaca ooyin walaalo is adkee nin ragu ilaahay kaa dhigay wala soo maraa oohintana ha isku celin hadal adoo hadlaya soco hadal ha isku celin adiga waa aamusay waxaan dhahay hadiiba saas tahay mar kale waxaan sameeyey dad familkii la xiriiray aan dhahay maadaama ani arrintan hadda igu dhacday oo qofkan ay tahay qof bulshada caan ku ah weliba loogu bartay diin akhlaaq ixtiraam sharaf like wallahi cabdiqaadir oo markay hadlaysa daa aragtid waxaa leedahay qofkan ilaahay ba dadka dhan ku ducaystaan nuucii oo la dhihi jiray jannatul firdaws waaye aan dhihi lahayd laakiin maanta waxaa ogaaday dumarka meelaha ka qaqaliyay dumarka aamusan inay dumarka qaqaliyay adduunka ugu fiican yihiin bismillaahi raxmaani raxiim okay sheekh markaad wacday muxuu sameeyey sheekh muxuu ku dhahay sheekha wuxuu dhahay arrintaada waa galaa laakiin safar baa ku jira oo afrika baa joodaa markaad dib u laabto ayaa baalkii arrintaada gali doonaa waxaan la xiriiray dad familkeeda ah intaanan la xiriirin life ayay soo fadhiisatay iyadaa life soo fadhiisatay adkaatay qof aan aqaano ayaa su-aal ugu dhiibaan dhahay adigoo lagu qabo oo weliba uur qof u leh inaad nin kale aad soo saaratid ama aad dhahdid ma diinta kuu banaysa manoo sheegi kartaa qof aa dhah waa video oo kuu soo diray jawaabta ay bixinaysa laakiin video dhammaystiran oo ahaaya oo kuu soo diri doonaa waxaad haysaa qofaad u dirtay iyadoo life ku jirtaa loo fuulay
waxaa la weydiiyey adoo nin kale ku qabo sidee nin kale sawir ula soo gashay jawaabteedii waxay dhamaystiraa caddeyntiina waa haysaa haye kadib maxaa ku jawaabtay waxay dhahday nin iqaba sheegaysin ma jirto ninkaygu ila joodaa waxaa ka hadlaysan ma aqaani wiilkaas aa sheedaysan sidoo u yaalaa weliyan isba guursan meel isku guursan ma naqaano aduna daawanaysaa marka dareenkaaga sidoo noqday nin raga gabadhii uu aaminay ee weliba akhlaaq iyo diin aad ku dooratay ee iyadu ku tiri i guurso ee nolosha noocaas aad la gashay 3 bilood kula noolay markii meel fagaara ay ka dafirtay telefoonkana ka qaban lahayd sodohdii ku block karaysay maxaa dareentay wallahi xaaladda aad ay u dareenayd ilaahay u laabtay laakiin wiilkii su'aasha markuu weydiiyay ay dhahday qolka iyo jiifaan odaygeeya waxaa sheegaysayna ma aqaani ayay waxay bilowday wiilkii dhahday ma lagu soo dirsanaaday lacag ma lagu soo siiyey isla markiina way tuurtay block bay saartay maxay tiri odaygayga guriga la joogaaba nin baaba guriga la joogaba nin baaba guriga la joogaba okay marka intaa maqashay markaa ma waarad maxaad tirey xaaladdu say kuu noqotay wallahi nafteeda waxyaaba badanaa ku sabay inuu baalkii wax kasta qadar alle ay yihiin adduunyadana la arkaayo dad aad u xun iyo dad aad u wanaagsan oo mar kastana aad kala kulmi kartid wax kasto aniga waa aamusay intii markii la dhahay sidai u weyn jirtay ayaa ani markaas waxaan bilaabay inaan verification sameeyo oo waxyaabo badanaa ogaado cabduqaadir waxaan ka hadlaayo waa wax dhab ah weliba maanta taagan aniga umaana soo hadlin ina ayada damac ka leeyahay ama weli aan waa gaari doonaa may waa ku aaminsan walaalo waa gaari doonaa sheekada ii wad si fiican baa sheekada u wadaa dadkuna si fiican bay kula socdaan okay markii saas dhacday maxaa dhacay kadib ay trainingkii wila jiifaa maxaad samaysay wallahi aad u ilmeeyay waa xasuustaa qalbigii dhanaan jabay heer waxaa jaaran anaa ku sigtay inaan nafteyda baalkii dhibaateeyo inaad tishaa ku fikirta hay iyo kula joogay guriga markaa xaaladaada la socday mise keligaabad hayd oo keligaa deganahay wax familkii ahna ilama joodaan wadankaa ku noolahay laba qofooda familkii way joodaan laakiin qofba gobol iyo gobol oo kala jiraaday qofkii ii dhow maanta la dhaho haddii wax igu dhaca macaan 7 hours oo ii jiraa subxaan allah hay keligaana waad joogtaa markaas tris dil sidee isku badbaadisay ma ilaahay baad u noqotay sidee baad ugu fikirtay sidee baad isku dejisay xaaladdaas sidee baad ugu jirtay marka hore telefonka aan ka fiirsanayay livekaas waa jijibiyey telefonka ku rasabaxay dadka dariska adiga apartment deganahay qof telefoon markii darbi wax lagu garaaco qofka dariska ku isoo gargaraaceen maxaa qaldanay dhaheen adiga emotionkii dareemeen dadkii ay la soo fariisteen oo ila hadleen adiga heer macaan waxay gaareen ambulance iyo wacaan laakiin waxaan dhaawaa ficanahay ilaa adiga habeenkii laga gaaray dadkaas guriga la joogeen oo dariska ahayd laakiin Soomaalina ma ahan waa dad ajnabi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hay dadkaas noloshooda ilaahay u soo diray telefoonka oo jabisay naftaada markaa inaad dishaad rabtay waxay maqleen gariirkii guriga ka baxay gariirka oo darbiga telefoon ku gargaraacay iyo xanaaqii bay ku soo baxeen waana meesha deeyana meelan loo ogoleen macna qofka habeenkii markuu hadlaayo inuu sakor u hadlin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hay shib waan dhahay waa aamusay markaas waxaa bilaabay baaritaan inaan sameeyo qofkan ma waxaan wax dabeecad ay ka tahaya mise wax dhaqan ay familka dhan u leeyihiin miya inaan baaritaan sameeya isku dayay dad badanaa la xiriiray arrinteeda waxyaabo badanaa soo ogaaday ma rabaan gabar Soomaaliyeed inay sharafteeda dhaawaco laakiin waxyaabo badan oo qaladaad badan oo horay u dhaceen ayaa la ii soo sheegay hay maxaa ka mid ah marka
in waxaan ani hadda la iigu sameeyey eena soo dhigteen oo baalkii lasoo dhigay baalkii ninkan iyo ayadoo casho la aadaysa iyo iyadoo dhehayso my sweet heart iyo waxyaabahaasba inay wax faamilkeeda raali ugu yihiin oo dad badan aan iiga horeeyana saas wadadan ugu soo dhaceen inaa lillahi wa inaa ilaihi dadkaas wadada ku isug intaadan kaa ii gaadhin niman badan oo adiga kaa horreeyey ayaa guur lala sameeyey lala soo noolaaday kadibna lagaga baxay sidan oo kale ha waana isla halkaa gabadh ha acuudu billahi min ashaytaan rajiim haye laakiin raggaas hal ka mid a ugu ronaayay oo waxaa aniga guurkii ugu horreeyay oo ahay guurkan haye oo awlaadna iima joogto oo cunugii ugu horreeyay calasha ii galaba waaba la inkiro qof kala dusha loo saaray laakiin waana guurkii ugu horreeyay weliba ahna baalkii qofkii ugu horreeya noloshada ku aaminay subxaan allah haye waa aamusay nafteeda u cabsooday isbitaalaa tage haye baaritaan guudow jagaaba nafteeda soo marsiiyey alxamdulilah ilaahay wax dhibaata iimuusa keenin haye oo wax kastaa iska soo baaray negative aa liga dhaha alxamdulilah andhah ilaahay u mahad celiyey sadaqana waa baxsaday maasha allah wiil diinta ku fiican baa tahay diinta ku badbaadisay wax badan waxaan rajaynayaa dad badan oo ina daawanaya dhibaatadan kale ku dhacday inay jiraan oo naftooda halis gelin gaadhay ama depression ku dhacay markasta xagga diinta u orda haye waxaan sameeyey markii intaas ay dhacday ee ogaatay inaa anina baalkii sidaas dhacday mar labaad ayaa waxa la xiriiray wadaadadii iyo familkii isku keenay beenna kama nabsanayay shaqow dalaxa waa joodaa haddaa rabta waa kuu soo saari karaa baalkii call o private adiga shiiqii ayaa arrinta la wadaaday aan dhahay shiiqow saasaa jirto diintana maxay ka qabtaa saan qofkaana waxyaabahan oo iigu sameeyey adina waan iskuya meheris waa ogeedaan dhahay diinta maxay ka qabtaa shiiqa wuxuu dhahay haddii arrintan ay tahay arrin jirto oo baaritaanaa sameynaa u dhahay magaalada ay ku nool yihiin familkaas waxaa baalkii u diraa dad wadaado si wixii jira baan usoo ogaado adi inta markay dhacday ayaa habeenka kale video lasoo dhigtay oo la dhahayo qof wax iga qaadi karta ma jirta kunna aroos hadaa rabo iyadoo hadlaysa soo dhigtayba maya sawirkeeda qoraalku soo qorqoratay tiktokgeeda haa ilaa haddana ku jiraa tiktokteeda I think inaan ka bixisan kara ma aqaani ani laakiin screen recording aan ka duubay wadaadkaa u dirane si fiican waa aamusay sheekada markay intaas marayso oo waxaasoo dhibaatana aa arkay maanta hadday dhahda macan waa baalkii ninkii imuusa biiri jirin 7 bilood lacagtii horumaraysa u qaadataa ku dhahay 7 bilood kaa maqnaanayso markii kaasii tegaysay biilkeeda gacantaad ka saartay yaa walaal haa lacag $9,000 ayaa biilkeeda farta ka saaraa cabdiqaadir mi maqashaa taleefona isoo gala sorry $9,000 baa farta ka saartay haa ajaib sheekhow haye 9,000 shopping ku samaysaan 9,000 mayadaa ku dalbatay ismaalkaa ii joog mayadaa dalbatay oo ku tiri lacagteeda u baahanay horumaris mise adun baa iska siiyey maya waxaan dhahay maadaama uur leedahay oo uurkii anin iigu horeeyey uu yahay cunugii anin iigu horeeyey nafsadeeda waxaan dhahay 7 bilood ugu horeyso lacagtaa kusiin walaaleeda hore u qaado 2,000 shopping hooyada iyo aabaha iyo walaalaha ugu samayso maasha allah haye cabdiqaadir codkii ay ugu soo laabana hal mar muudaa gelinayaa hal mar muud iskeli wax loo garaynaya iska dhig soo saar wax kasta waxaad maqashaan
dumar baa la xumeeyey caawa wiilkaas waxa dhibaato ku dhacday arkaysan shaashada inoo garaaca halmar shaashada aniga marka intaas lagu sameeyey waa aamusay waxaan sameeyey oo baalka biilkeedan hore u qaadat waxaan dhahay sheekow maanta hadday dhahda macaan ninkaan ima biilanaynin oo bishii ugu horey macaan biili ma soo dirin waa kaasaan dhahay wixii caddeen ah haddii anuu meeshii joogo hadday isoo wacdo waxaasaan u baahanay dhahda risiidyadii macaan waa hayaa ma fahanti waa aamusay sheekada markay intaas maraysay wadaadadii aan la xiriiray oo waxaan sameeya aqoon waaye wadaadadii waxay dhaheen marka hore arrintan dib u dhig oo meel bila oo bulsho ah ugu dhex hadlin laakiin arrintan waxa kale umaana soo qabsan qof dambe oo bilaadan ah oo islaam ah oo diinta islaamka nala sheegto weliba qof dhalinyaro ah ama qof maanta oo baalka hore usoo guursadaa ama soo guursan inuusan qof dambe bilaadan ah lagu qiyaamin diinta ama ixtiraamka ama like the way qofkan oo maanta bulshada ku dhex jiro oo u hadlaayo like maanta 100 qofood ayaa waxaas dhan waa falanqayn doonaa walaalo waxaas dhan waa falanqayn doonaa kule cadaymo badan aniga gaar baa igu soo dirtay si barifaada taas haynoo dambayso kadib marka culimadii la wadaagtay maxaa dhacay si xaalad haka ugu dambaysana gee culimadii markaa la wadaagay culimadii taleefanada laga xirtay reerkii waa taleefanada ka hadha markaa su-aasha kalan ku weydiinaya hooyadeed iyo aabaheed iyo iyadu isku meel bay joogaan hooyadeeda aabaheeda iyo walaalaheeda wax familka dhan hal meel ay wada deyihiin hal meel ay isku magaalo joogaanba isku magaalo laba guri iska soo horjeeda deyihiin familka dhan waana lagu qabaa gabadha meesha sida ayada ee sida ayada meel public ka dhex sheegtay oo wixii cadeemana oo sawiro iyo meel ay soo dhiganaysana ay jiraan waalidkeedana markii la waco haddiis arrintan waxba ka ogeyn way dadka ay blood u saarayaan ama dadka oo rabaan inay la hadlaan way taleefka u qawaayeen marka intaas markay martay oo waalidkii ani taleefna iga qabanayn familkii wallow haddii ani eeds rabin inay la hadlaan familkii waa la hadli karaan way dhihi karaan dee wiilkii gabadha dhibaata ka dhex taagan dhibaatadaasna aan xalino ama saan wadadaan aan wada marno ama wadadaan aan kala marno war la garto waalidkiina qof la xiriirtan waa la diiday wadaadadii sidoo kale marka waa kaas cabdiqaadir meeshaas ayay arrinta maraysaa okay imsa bilood ayaa hadda hawshani taagan tahay muddo waxaad soo jiitamaysaa oo barashadii wax dhan marka la isku daraa may intaad qabtay oo qabitaanka markuu meherka dhacay ilaa arrintan intaa 5 bilood waa 5 bilood welina uurkii way leedahay maya uurka markay qaaday iyo maanta markii laabatama ka bilaabaa mise markii meherkii u dhacay markuu meherku dhacay meherkii markuu dhacay ilaa maantadan la taagan yahay 5 bilood waa markay uurka qaaday kaa tagtayna imsa bilood ma ka soo wareegtay 3 bilood 3 bilood ay hadda kaa maqanta oo ay sheekadani socotaa okay markaad gabadha guursanaysay ma gabadh ahaan baad ku guursatay mise garoob inay garoob tahay isheed oo hal caruur haysato inay garoob tahay kuu sheegtay hal caruur haysato sidaasna aad ku gashay 3 biloodna hadda cunugaagii iyo gabadhii toona ma haysid sax waliba afkeeda ka cadaysata ayadoo dhahayso ma aqaani ninkaa cunuga uurka u layaana gurigaana ii dhex fadhiyaa ninkaa sheegaysana weliga maba guursanin okay intaynaan su-aalaha kale kusii weydiin halka fariin ee iyada khaas ugu dirayso iyadoo adigoon magaceeda sheegin marka hore sheegin halka fariin aad u dirayso aad ka soo bilaabayso maalintaas barateen aad xasuusinayso waqtiyada quruxda badnaa aad xasuusinayso noloshii aad soo martay maalmihii ku xumaysay aad xasuusinayso maalmihii farxadda laa noloshii aad soo marteen aad xasuusinayso wanaagaad u samaysay aad xasuusinayso sida daacadda u ahayd ilaa maanta meesha sheeko u taagantay fariin u reeb
aniga qofkaas waxaan ku aaminay nafteeda waxaan siiya wax kasta oo qof bilaadan oo nin kasta naagtiisa uu sii karo wax kasta oo nafteeda aan ka hormari karay waan ka hormariyey farxad kasta diyaar baan kula ahay laakiin waxaa la dhahay qof kasta madaxa qofka uu istaago way u fududahay laakiin in ani madax liiga istaagay ayaa qoortana liiga sii jaray laakiin waxaa igu samaysay horteeda dadkii ugu soo dhacday ilaahay samir iimaana ka siiyo anina tan igu dhacday maano waxaan dhahaa maanta maalin ahayn oo la xisaabi doono oo qof kasta qabri 2 mitir sugayo adduunkan iyo dhadhalaalkan iyo adiga la soo dhigay TikTokan iyo Facebookan iyo hooyada iyo aabbaha ama lacagtan iyo hantidan iyo nothing maalin laga tagi doona jirayso maalin qof kasta la xisaabi doono maalin qof kasta oo la imaan doono 40 sano la taagnaa doono qof kasta sugayso anina maalintaas ayaa wixii xaq oo ilaahay aan ku leeyahay maalintaas wax dembi ajashay dembi oo qof islaam oo qof maanta bilaadanka gali kara maahan laakiin maanta maalin ahayn xaqayga waa kaasoo bixi doonaa subxaanallah okay maalimo ma jira farxad aad ku nooleedeen ama hadallo aad dhihi jirteen aad xasuusinaysaa oo dib u xasuusinaysaa ka soo bilow markay si shukaansanaysiin hadalladii kugu beer la xasuusin jirto oo kale waxay ahayd qof kasta oo waalidkay kamid ah markay la hadasho wax kale ma dhihi jireen igu duceey inaanay asi isku dhamaysano waalidkii ku oran jirtay ha hay igu duceey inaan isku dhamaysano laakiin waxaas dhan qayaali iyo plan u dhegsanaya ka ahayd hay adiga eriyada ku xasuusato ee qalbiga ku soo jiitay maxaa kamid ahaa ee aad ku dooratay maanta alle wallahi eriyadaasaan ku doortay haddana waa khiyaantay waa eriyada ma ilaabi karo intayna guurka soo gaarin xilligii shukaansiga waa xijaabka hadallada macaan like markasta lagu dhahayo xabiibi maanta dhan u sheekeynaya lagu dhahayo baalkii diinta san waaye gabadha ha xijaabnaato gabadha ninkeeda ha adeecdo ninkeeda baari ha u noqoto like wax ana qofka bilaadanka alisan dhehayna macaan qofkan ayaa qof saan naftiisa u lugoo doono aan ahayn intaas ay ahayd okay markaad guursatay maalmihii kugu farxadda badnaa ee aad xasuusin karto meelihii aad tagteen hal mar adoon meelihii hataa sheegayn yar dulmar cabdiqaadir hal maalin guri aan wada fariisana ma jirin maalin la keeno magaalada meel alla meesha ugu qurux badan xeebaha meel kasta waa jeey jira oohintaas ku celin walaalo oohintaas ku celin kugu badanaya waxaan rabaa in waxa kugu jira in badan bad qarsanaysa uu kaa soo wada baxo ayno cabdiqaadir marka oohinta waxaan rajaynayaa inaad isku celin oo hal mar hadalka iska soo wada saarto oo wax kasta oo xasuusanayso waxyaabahan waxa maskaxda markasta ku soo dhacaysa qofkan way wanaagsaneen maxay saa kugu samaysay waxyaabaha u badan ku dhaweeyay ka mid tahay marka inaad sheegtid caafimaadkaaga ku jira okay maalimaha aad tegi jirteen iyo meelihii aad tegi jirteen maxaa ka mid ahaa iyo waxyaabaha aad xasuusan jirteen ilaahay qalbigana ha kuu qaboojiyo cabdiqaadir oo sawirada kuu soo diraa sawir ka mid ah meel dalxiis oo ah macna daa si fiican u fiiris si fiican waan arkay sawiraanta ii soo dirtay ha idinkoo isku faraxsan weliba wejigeeda farxad badan baa ka muuqata waa sax meelahaas meel kastoo magaalada ah waa geen jiray gobolka gobol magaalo ka magaalo meel kasta baraado wallahi hal mid meesha anaa ka sheega rabaa laakiin qalad baa igu ahaato hal maalin ma u yartahay wallahi beenaan kuu sheegin cabdiqaadir haddaa rabtid live snaabka waa kaasoo wacabtaaba gacanta u saari karaa hal maalin raashin macna ii kara maanan dhihin anaa u karin jira macan hal maalin inta ay kula joogtay raashin kari maad dhihin adaa karin jiray ha wallahi haddaa rabtid taaba gacanta kuu saara snaabka iga soo subxaan allah
iyaduna kuma dhihin aan kariya xawigii iska daxitaa ها براد weelku maxaa la intaas jira intaasna aniga waxaa isdhahay maadaama ay usoo baxday inay waqti iyo wada qaadatiin nafteeda macnayeysa dareemin in baalkii iyeysa dareemin in baalkii macna ay wax kuu taraysa ama hool ay ku mashquusho dumarku ninka wanaagsan oo ka helaan tanoo kale ku dhacda mararka qaar laakiin dumarka oo dhan maaha qof wanaagsan dumar badan baa rag wanaagsan ma jiraan ninkan oo kale waa jira dad badan oo kale jira marka qofkii wanaagsan qof xun baa ku beegma noloshaan laga quusan dadkan oo kale way jiraan okay marka cuntada kariso marka adigu cuntada kariso adigoo nin raga marka cuntada u kariso u soo dhigto ma kuu mahadnaqi jirtay weelka meesha ma ka qaadi jirtay gurigeedu ma hagaajin jirtay mise maca guriga adaa qaban jiray weelka wax dhanba ma taas way samey jirtay waa ugu mahadcelinaa waana kuu mahad celin jirtay ha maalinna ma ka dareentay inay ku khiyaamayso intii kula joogtay cabduqaadiro haddaa maxan meesheeda aad geshid intaan cadeemaha kuu soo dirin ama ciwaankeeda haddaa kuu sheego si private kugu soo diri doonaa haddaa geshid isma dhehaysid macan qofkaana qof bini'aadan naftiisa ku ciyaaraay macan hay isma dhehaysid qof bini'aadana qofkan marka aragtid qofka say u hadlayso ama sida qofkan u ixtiraamayso ama qofkan say like haddaa aragtid waa dadka labay u kala baxaan qofna waa qof afkaada hal mar adiga dhan wax rabta u kala bixi karo qofna waa qof like aqligaada maskaxdaada ku ciyaari karo ayada like waxaa dhihi karaa dadka maskaxda hal mar ka xada waa waa dadka maskaxda hal mar ka xada ha okay marka hadda maxaad rabtaa inaad samaysid gabadhaas waxaad rabtaa sideebaad rabtaa inaad uga hadhid weli ma jeceshahay oo ma rabta hadday maanta kugu soo laabatay ku tiraado noloshii baa wadanaynaa ma wadanaysaa jacaylkeeda iyo xusuusteeda weli qalbigaaga ma ku jiraa cabduqaadiro qofka bini'aadanka meel xertaa jirto waana diinta islaamka qof ka gudbay xagtuu ilaahay ugu talagalay maanta qof kale oo ka helaa ma jirto anina hal kamid a usoo qabsaday ama nafteyda jeclaystay inaan qolkaada ka hadlo waxaa waaye wixii ayada ku saabsan private kugu soo wada diri doonaa laakiin ma rabi qof dambe oo islaam ah inay sidaan ay u gasho ama sidaan ay kula dhaqanto ama ugu talagasho inay qof dambe aqligiisa ku ciyaarto ama wadaadnimadan iyo xijaabkan dadka lagu siraayo oo ka hooseyso maslimada ama baalkii islaamka furashada ka hooseysane inuusan qof dambe oo qof bil'aadinaasu ku dhicin okay haddii ay kaa soo garab bixi weydo maalmaha soo socda ama war saxa aad ka weydo markaa waxaad rabtaa inaad soo qarxisid anigiisa iga soo garbixin hadday rabto laakiin wadaadada soo waceen wadaadadaas familkooda hala hadlaan because arrintan arrin diinta oo xadgudub ku ah waaye anina wixii diinta ah wadaadaha jiraan wadaadadaas hala masha baalkii hala hadlaan ayakii wixii wadaadada ay soo gooyaan aan ku qanacsanahay laakiin wax kastana adigoo kuu soo diri doonaa okay horta waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dad badan baa sheekooyinkan haystaan oo ama aan soo gudbin karayn ama rabo inay nafisaan snapchatkaygu kor buu saarayey ama hal mar baan soo qorayaa qofku siduu wiilkan oo kale ballanta nooga qabsaday ballanha naga qabsado qofkii sheekadu ay ku dhacday hadduu rabo inuu sheekeeyo haddii kalena hablahaas ama aniga aa sheekada soo gudbinaya si qofkaasi uu nafiso waxyaaba badan oo dhexdeena ka dhaca looga digtoonaado okay gabadhaas ma rabtaa markaa si dadku iskaga ilaaliyaan cadeymadeediina maadaama ood haysid sheekh dalha uu joogo dadkii oo dhan uu joogaan habeen dambe caawa intaan si fiican ama beri ku soo waraysto sheekh dalxa ila hadashiisid
la faafiyo oo aynu sheegno waa diyaar cabdiqaadir habeen dambana ay ummadda u sheekh sheegno cabdiraxmaan 3 cisho iga codsaday in ajaan siiyo si sheekh cabdiraxmaan 3daas cisho aan ka warsugi rabaa sababtaani u hadlay dad kale oo arrintan ku dhacday oo la soo wareystay oo dad familkii soo wareysteen way jiraan laakiin dadkaas waxay u hadli waayeen waa dad xaasas leh oo ayada markay arrintan ku galayeen ee ahaayeen dad xaasas leh oo isqarinayeen laakiin aniga waxaan go'aansaday in maadaama ani maanta qof single ahay oo dhibaatadan igu dhacday aan rabana baalkii in wixii bulshada mar dambe qof dambe oo sidaan lagu qiyaamin ama sidaan qof dambe oo bilaadan ah aysan ku dhicin sidaas ayaa ugu talagalay aan kula soo xiriiray cabdiqaadir intaa ka badanna ma hadli kara xaaladayda si kale noqotay wax yar aan mudgalaa ilaaha ku caafiyo walaalo leedahay oo uurkaas uu yahay uur ilaahay waxaan ka baryaa inuusan gabar ka dhigin oo beri wadada ayada ee martay inaysan marin ilaahay waxaan ka baryaana inta ay nooshahay inuu hal gabar siinin si ay ayada wadadaas ee martay aysan gabadh awlaad ee dhali doonto inaysan u noqon awlaad wadadaas wada marto wiil caadi waaye wax hore wadoo sameeyo laakiin qof dumar ah ilaahay waxaan ka baryaa hal gabar inuusan siinin inta ay nooshaaba intaasoo ku darsana wiilka xanuun badan baa loo geystay run ahaantii shakadana aad bay xanuun badan tahay wallaahi ilaahay naguma keeno waxaa dareemi karaa un inta badan waxaa aragteen qof jacaylkiisuu ka tegey aa xanuun dareema bal qof xaaskiisii oo ooridiisii oo siduu inoo sheegay uu ku bartay akhlaaq iyo diin la fijaaban oo diinta 24 saacadood uga sheekaysa iyadoo guurka ka dalbatay xalaaluu ku guursaday la soo joogtay 3 bilood nolol qurux badan oo geliyey maalmaanu ilaabi karan siisay lacagtiisii adduunkiisii uu siiyey farxad kaga tagtay hal mar noloshii oo dhan oo iftiimaysay mugdi uga dhigtay ciriiri gelisay keligii uu ooyey uu ilmeeyey si qaar badanoo ka mida ku dhacday oo haddayna daawanaya waa gabadha shalay farxadda ku guursatay xijaabka ku guursatay dhaqanka wanaagsan ku guursatay aanad ka filayn marnaba inay ku xumayso ay tiri ninkayga ila joogo gurigu joogaaba isagiina uu daawanaa 3 bilood ka hor xaaskiisii wahayd uurka ay leedahay waa kiisii xanuunku qofkaas dareemayo cabdiqaadir erayaas markay dhehayso waa buuqa iyo waxaan dhan ee samaynaysay hal bil waay macan ma dhama macan 3 bilood hal bil bas waay bil kaaga daran iyada keliya hadday sheekada ku eg tahay hooyadii la raadiyey sodohdii baloo ku saartay ilaa meel loo ciirsadaana ma jirtaba odaygii ka daran guriga ay degan tahay iyadoo guriga hooyadeedii aabaheed ay degan yihiin waa jaar waa la qabaa markii gabadha la siinay hooyadii aabaheed baa siinay reerkaas haddaad u gacan gasho maxaa ku tilmaami lahaa weliba marka sheekada sii daba gashid lagu sheego in rag badan oo adiga oo kala ay sidan ku dhacday snaabka igala soo xiriir insha Allah ma sheekh cabdiraxmaan waa kula hadalsiinaa la berisi fiican kula soo xiriira sheekh cabdiraxmaan waa kula hadalsiinaa dad badan oo arrintan la socda waa kula hadalsii doonaa wixii caddeemo dhan oo ku soo diri doonaan bilow ilaa dhammaan haddigan walaal hadalaa ku dhihi rabnaa wax yar faaduma ku soo ma inanku hadda iga dhaafa